kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Bulsho Sports TV markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha bulsho qodobada idii hayana waxaa kamid ah Mourinho ayaa doonaya inuu Ramos keeno Roma Pogba ayaa wali rajeynaya ku biirista Madrid Man City ayaa 100 milyan ku raadinaysa Harry Kane Barcelona ayaa xoojinaysa saxiixa Gosens Chelsea ayaa u soo bandhigi doonta N'Golo Kante heshiis cusub Arsenal ayaa qarka u saaran dalabka Rodriguez Man United ayaa kaga xiran dalabka Sancho 77 milyan kaliya intaasi waxaan qodobadii wararka Bulsho Sports haatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan Mourinho ayaa doonaya inuu Ramos keeno Roma Jose Mourinho ayaa si aad ah u doonaya inuu daafaca hore Real Madrid Sergio Ramos keeno kooxdiisa Roma sida laga soo xigtay Calcio Mercato 35 jirkan ayaa lagu heli doonaa suuqa xorta ah waqtigan kadib markii uu ku guuldareystay inuu heshiis qandaraaska loo kordhiyo Blancos ka waayay Mourinho ayaa tababaro soo noqday Ramos intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2013 waxa uu rajeynayaa inuu difaacaasi ka soo dhex muuqdo garoonka Stadio Olympic ee kooxda Roma dhinaca kale Paris Saint-Germain ayaa qarka u saaran inay heshiis xor ah kula soo saxiixato Sergio Ramos waxaa sidoo kale jira dalabyo ka imaanaya kooxo badan oo ka dhisan horyaalka Ingiriiska sida Manchester United iyo Manchester City oo iyaguna dhankooda ceersanaya saxiixa Sergio Ramos laakiin waxaa loo maleynayaa in kooxda Paris Saint-Germain ay soo bandhigtay dalabkii ugu fiicnaa waqtigan Pogba ayaa wali rajeynaya ku biirista Madrid warbixintaasi waxaa eegaya Cabdiraxmaan Maanka Paul Pogba wuxuu ka farxi lahaa inuu u dhaqaaqo kooxda Real Madrid sida laga soo xigtay laacibkan u dhashay dalka Faransiiska ayaa muddo dheer sugayay dalabka iga yimaada kooxda uu aadka u jecel yahay Real Madrid waxa uu yiri Paul Pogba waxaan tixgelin doonaa dalab walba ee ka socda Real Madrid waqtigan Manchester United ayaa diyaar u ah in Paul Pogba ka dhigto ciyaaryahanka ugu mushaarka badan Premier League haddii uu ogolaado inuu kooxdiisa la sii joogo dasan ayaa sheegaysa in Paul Pogba uu galay sanadkii u dambeeyay ee qandaraaskiisa Old Trafford kaas oo ku qaadanayo 300 oo geni usbuucii dalse kooxdiisu waxay doonaysaa inay kaga tagto bixitaankiisa iyadoo mustaqbalkiisa uusan wali hubin Manchester United ayaa qandaraas usbuucii ku qaadanayo qiimo dhan 405 sano ee soo socota si loo qanciyo ciyaaryahanka qadka dhexe inuu sii joogo Manchester United Man City ayaa 100 milyan ku raadinaysa Harry Kane qodobkaasi waxaa eegaya Xuseen Cumar Xuseen kadib markii loo caleemo saaray horyaalka Premier League bishii hore Manchester City ayaa xilligan u dhaqaaqaysa suuqa kala iibsiga Pep Guardiola ayaa isha ku haya hanashadiisii labaad ee isku xigta hanashada horyaalka Ingiriiska wuxuuna doonayaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican horyaalka xilli ciyaareedkan Harry Kane ayaa lagu soo warramayaa in uu sheegay Tottenham inuu doonayo inuu ka tago kooxda xagaagan kadib markii ay lumiyeen booskoodii Champions League Manchester City ma ahin kooxda kaliya ee xiisaynaysa dalabka 27 jirkan Harry Kane si kastaba sidaasi darteed Guardiola wali uu u baahan yahay weeraryahankani Barcelona ayaa xoojinaysa saxiixa Gosens Barcelona ayaa qorsheynaysa inay raadiso daafaca bidix ee Atlanta Robin Gosens sida laga soo xigtay Sports 1 Barcelona ayaa la xiriirtay wakiilka 26 jirkan si ay u helaan adeegiisa laakiin waxay tartan kala kulmi karaan kooxo badan oo ka dhisan horyaalada Premier League iyo Serie A Robin Gosens ayaa wali haysta 2 sano oo qandaraas ah laakiin Atlanta ayaa diyaar u ah inay iibso difaacan haddii ay helaan dalab dhan 35 milyan oo euro ama ka badan Chelsea ayaa u soo bandhigi doonta N'Golo Kante heshiis cusub warbixintaasi waxaa eegaysa Qamar Maxamed Cumar Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay qarka u saaran tahay inay qandaraas cusub oo qaali ah u soo bandhigto ciyaaryahanka qadka dhexe N'Golo sida laga soo xigtay suxufiga Fabrizio Romano Chelsea waxaa ka go'an inay xaqiijiso mustaqbalka Kante iyadoo ciyaaryahanka reer Faransa ay 2 sano oo kaliya uga harsan tahay qandaraaskiisa haatan isla markaana ay soo baxeen kooxo aad u xiiseenayo N'Golo Kante kadib xilli ciyaareedkiisii cajiib xilli ciyaareedkii hore Chelsea ayaa diiday 2 dalab oo Kante ah waxay qarka u saaran yihiin inay wada hadallo la furtaan 30 jirkan toddobaadyada soo socdo N'Golo Kante ayaa Chelsea ku soo biiray sanadkii 2016 isagoo kula guuleystay horyaalka Premier League kooxda Leicester xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kubadda cagta Ingiriiska tan iyo markii uu u wareegay garoonka Stamford Bridge Kante wuxuu ku guuleystay tartamada
kale ah Premier League, FA Cup, Champions League iyo Euro League. Kante ayaa 218 kulan u ciyaaray kooxda Chelsea, inta badan wuxuu la dhacsan yahay awoodiisa, halka uu sidoo kale rajeynayo inuu weli kasii dhex muuqdo kooxdiisa Chelsea sanado kale. Arsenal ayaa qarka u saaran dalabka Rodriguez. Warbixintaasi waxaa eegaya Xasan Cumar Xuseen. Arsenal ayaa qarka u saaran inay la soo saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Betis Rodrigo sida ay qortay Marca, iyadoo kooxda reer Spain ay diiday inay aqbasho wax ka yar qiimaha lagu burburin karo qandaraaskiisa oo ah 80 milyan oo gini. Rodriguez ayaa xilligan la matalaya xulkiisa Argentina tartanka Cup America, balse maamulaha kooxda Arsenal ayaa bilaabaya muujinta xidigan si ay kaga dhaadhiciyaan xidigan imaashaha kooxda Arsenal xilli ciyaareedkan. Man United ayaa dalabka Sancho kaga xiran 77 milyan oo kaliya. Manchester United ayaa loo sheegay inay qasab ku tahay inay bixiyaan qiimaha lagu doonayo xidigan oo dhan 77 milyan si ay ula soo saxiixato Jadon Sancho oo si weyn u muuqda Borussia Dortmund. Kooxda reer Chelsea waxay garab istaageen qiimeynta xidigahooda xilli ciyaareedkii hore. Maamulka sare kooxda Manchester United ayaa goordhow shaaca ka qaadan inay isku noqon doonaan si ay u gaaraan go'aanka madambayska ah oo ay qaadan doonaan saxiixa ay aadka u xiiseynayaan ee Jadon Sancho. Kooxda Manchester United ayaa waxay soo wajahday dhaqaale xumi aad baadsan, laakiin hadda waxay doonayaan inay xidigahooda qaarkood ay iib geeyaan. Inta aan ku soo gabagabeynaa wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV, aniga Munax Ismaan waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.